Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jina langu ni Imran Mohamed Alawi. Nimezaliwa Zanzibar. Magacaygu waa Imran, waxaan ku dhashay Zanzibar. Imran wuxuu ka mid yahay dagaalyahanada kooxda Daacish oo ka dagaalantay buuraleyda Calmiskaad. Waxaa laga soo qabtay isagoo ka soo farxaday duqayntii ugu dambeysay ee lagu bartilmaameedsaday horjoogaha kooxda Daacish. Wuxuu ku hadlayaa afkiisa hooyo, waxaana BSF u suurta gashay in ay turjumaan. Kapeleko moja kwa moja mpaka katika sehemu za milima na sida naloo soo waday waxaa nala geeyay buuraha, waxaa nala siiyay tababar qoriga AK-47-ka. waxaa jooga ajaanib ka yimid Itoobiya, waxaan arkay kuwa ka yimid Malawi, waxaan arkay kuwa ka yimid Yemen. Soomaalidu waa ku yar yihiin, waxaa ka badan kuwa ka yimid wadamada kale. anigu waxaan ka qayb galay 2 dagaal, waxaana la dagaalanay Al-Shabaab. waxaan joognay buur hoosteeda, waxaa dhacay duqayn meel buuraha ah ay joogeen kuwa asxaabteedna, waan baxsanay. Jina langu ni Imran Mohamed Alawi. Nimezaliwa Zanzibar. Tukapelekwa moja kwa moja mpaka katika sehemu za milima na tukafundishwa sisi mazoezi ya AK. Ipo nchi ya Ethiopia. Nimeona watu kutoka Malawi na nimeona watu kutoka Yemen. Somali wapo kidogo, nchi nyingine kutoka nchi nyingine ni watu wengi. Ndio, mimi nilipigana vita mbili. Tulikuwa tunapigana na Al-Shabaab. Tukakaa katika pango, likatokea bomu, yani katika mlima mmoja ambao wapo wenzetu